السلام عليكم أصحابتا وردقدقة xogayaha guud ee golaha amniga ee waddanka Iiraan Cali Larijani ayaa waxa uu leeyahay waxaan gacanta ku dhignay tiro ka mid ah ciidamada Mareykanka. Arrintaasi arrin la yaab leh waaye. Ciidamo Mareykana lug ma aysan ku gelin Iiraan halkay ciidamadan ka soo qabteen ma badda ay ka soo qabteen halkay ka keeneen ilaa ay hadda lama ogo. Laakiin telefishinka afka Carabiga ku hadla Al Jazeera ayaa waxa uu soo tabinayaa in Cali Larijani oo ah xogayaha guud ee golaha amniga qaranka ee waddanka Iiraan uu yiri waxaan haynaa oo gacanta aan ku dhignay tiro ka mid ah ciidamada xitaa hal ma ahan tiro ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaan gacanta ku dhignay. Afhayeen u hadlay ciidamada Mareykankana waxa uu leeyahay arrintaasi waxa ay ka mid tahay beentii iyo marin xabaabintii ay dowladda Iiraan mar kastaba ay waday oo dowladda Mareykanku waa ay beeninaysaa afhayeen u hadlay ciidamada Mareykanka. Laakiin warkaasi ayaa soo baxaya kulley Iiraan wax aysan gacanta ku haynin ma aysan iska sheegateen sida muuqata. laakiin warkaasi degdeg ah ayaa hadda soo baxaya haddii waxyaabo kaloo dheeri ah ay ka soo kordhaanna waan arki doonaa laakiin waxay ku soo beegmaysaa xilli madaxweyne Trump iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa JD Vance iyo wasiirka gaashaandhigga ama wasiirka dagaalka Pete Hegseth ay maanta Mareykanka ku soo dhaweeyeen naxashka ay ku jireen meydadka 6 askari ee Mareykanka ee Israa'iil ay ku dishay duqeyntii saldhigga Mareykanka ay kula beegsatay in dalkaasi Kuwait saldhigga uu ku lahaa ay kula beegsatay marka 6 askari meydkoodana waa la keenay haddana waxa ku soo beegmaysa arrintan Cali Larijani uu leeyahay xogayaha guud ee golaha amniga qaranka ee waddanka Iiraan askar Mareykan ayaan gacanta ku haynaa arrintaasi haddii ay run noqoto ceeb weyn ayaa Mareykanka la soo gudboonaanayso siiba madaxweyne Trump oo dagaalkan dhahayay xitaa waxa ay diidayaan inay dagaal ugu yeeraan mas'uuliyiinta Mareykanka waxay leeyihiin howlgal military oo qaas ayaan wadnaa waxa la barbar dhigayaa markii Ruushka uu ku qaaday dagaalka Ukraine sanadkii 2022 waa uu diiday in dagaal uu ku micneeyo waxa uu yiri arrintan waa howlgal military oo qaas ah hadda sidoo kale ay leeyihiin mas'uuliyiinta Mareykanku dagaal ugu ma yeerayaan arrintan waxay leeyihiin howlgal military waaye oo aan bilownay waana soo gabagabeynayna marka Trump xitaa waxa uu bartiisa True Socialka maanta uu ku soo qoray markii Iiraan ay tiri oo madaxweynahooda uu yiri wadamada dariskeena waan ka joojinaynaa Iiraan waa isdiibtay already wadamadii dariska waxay tiri dagaalka waan ka joojinaynaa sidaas ayuu hadalka u dhigay Trump marka Netanyahu oo mar dhaweeyta hadlayana waan arkay oo isaguna dhahaya in dagaalkan waan ku guuleysanaynaa aan Iiraan kula jirno isagoo kale Xisbullahina dagaal ay kula jiraan oo xalay waa tii 2 tuulo oo kamid ah ciidamada oo la kabtaro watay Israa'iil inta galaan dagaal xoogan uu ku qabsaday markii dambana ay ka soo carareen oo xitaa dhimasho dhaawac ayaa jirta ayaa la leeyahay dhinaca Israa'iil marka hadalladaasi kala duwan ayaa soo baxay xitaa Netanyahu oo hadlay wuxuu leeyahay waxaan nahay wadanka ugu awood badan bariga dhexe ee Xisbullah waan ka guuleysanay hore Xamaasan uga guuleysanay haddana waxaan ka guuleysan doonaa ayuu leeyahay Iiraan marka waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordhay laakiin warkaas ayaa soo kordhaya Iiraan ay sheeganayso in ciidamo Mareykan ay gacanta ku dhigtay oo hayaan meesha ay ka qabteen qaabka ay ku qabteen inta ay leeyihiin ilaa hadda lama ogo wixii warar ah ee soo kordhay stay tuned ciidamada Mareykankuna arrintaasi waa ay beeneen